السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن داود الكسور دواد وركي عيارها بولش سبورت قضبضا إنها يانا waxa kamida Welbeck wuxuu doonayaa heshiis kordhinta kooxdiisa Juventus ayaa qorsheynaysa inay iska iibiso Ramsey Lautaro ayaa doonaya inuu joogo kooxda Inter Milan Arsenal ayaa diiday dalab ka socday Xhaka Coman ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo Premier League intaas waxay qodobadii wararka hadana ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan Welbeck wuxuu doonayaa heshiis kordhinta kooxdiisa qodobkaasi waxay noo haysaa Muno Cismaan Danny Welbeck ayaa wadahadal heshiis kordhina kula jira kooxda Brighton sida laga soo xigtay Times Welbeck ayaa heshiiska kooxdiisa wuxuu dhacayaa dhamaadka bishan Brighton ayaa doonaysa inay 30 jirkan ku sii hayso garoonkeeda xilli ciyaareed kale iyagoo waarka mid muhiim ah kooxda waqtigan wuxuuna kooxdiisa u dhaliyay 6 gool 24 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkii hore Juventus ayaa qorsheynaysa inay iibiso Ramsey qodobkaasi waxay noo haysaa Bibaye kooxda ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga ee Juventus ayaa guud ahaanba sheegtay inay iska fasixi doonaan xidigooda Aaron Ramsey kadib markii la xusin laacibkaasi uu ku fashilmay mustaqbalkii iyo hamiga kala kooxda kubadda cagta Juventus xidigana ayaa inta badan ay aafayeen dhaawacyo kala duwan laakiin Juventus waxay sheegtay in waqtiga kan xaadirka uu isaga dhaqaaqi doono garoonka kooxda kubadda cagta Juventus Aaron Ramsey ayaa dalabyo muhiim ah ka soo gaaray dhowr kooxood ee ka dhisan tartamada qaaradaas Yurub laakiin shakhsiyan buu wuxuu laacibka marka uu doonayay inuu dib ugu laabto horyaalka waddankaas Ingiriiska ee Premier League shabakada gool ayaa markaa xusaysa in kooxda kubadda cagta Arsenal ay beenisay wararka sheegaya in Aaron Ramsey ay dib ugu soo celin doonaan istaadiyaha laakiin Juventus kaliya waxay cadeysay in toddobaadkan gudihiisa ay markaa baadi goobi doonaan kooxda u qalma in markaa ciidankaasi uu ku biiri karo waqtiga kan xaadirka Lautaro ayaa doonaya inuu joogo Inter Milan qodobkaasi waxay noo haysaa Qamar Maxamed wakiilka weeraryahanka kooxda Inter Milan Lautaro Martinez ayaa rajeynaya inuu sii joogo xilli ciyaareedka soo aadan ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka Argentina ayaa la xiriirinayay inuu ka tagayo kooxdiisa Inter Milan oo heysata lacag la'aan laakiin Camano ayaa yiri waxaan u maleynayaa in Inter Milan ay ka go'an tahay inay sii heysato Lautaro maxaa yeelay waxay u heysataa inuu yahay hogaamiye sidaas daraadeed waxay doonayaan inuu sii joogo Inter Milan ma jiraan wax la taaban karo laakiin mar waliba in aan ka warsugnaa go'aanka uu qaadan doono Lautaro waa 23 jir fikirkiisuna uu aad muhiim u yahay waxaan qabaa inuu noqon karo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka wuxuu leeyahay dhammaan astaamaha inuu ka mid noqdo kuwa ugu fiican adduunka Lautaro ayaa kooxda Inter Milan ku biiray 2018 heshiiska kooxdiisana waxa uu ka dhacayaa 2023 Arsenal ayaa diiday dalab ka socday Xhaka qodobkaasi waxay noo haysaa Muno Cismaan Arsenal ayaa doonaysa inay iska iibiso ciyaaryahanka qadka dhexe laakiin waxay isku dayi doonaan inay marka hore kor u qaadaan qiimaha ay ku iibiyaan xidigooda Xhaka Arsenal ayaa diiday dalab dhan 12.9 milyan waxaana qiimahaasi ku dalbatay kooxda ka dhisan horyaalka Talyaaniga ee Roma sida ay qortay BBC si kastaba ha noqotay Jose Mourinho ayaa la filayaa inuu xoojiyo dalabkaasi Xhaka si uu xidigani awoodiisa ay kooxda uga faa'iideysato xilli ciyaareedkan Coman ayaa doonaya inuu dhaqaaqo Premier League qodobkaasi waxay noo haysaa Bibaye xidiga kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich Coman ayaa guud ahaanba doonaya inuu isaga dhaqaaqo Bundesliga waddankaasi Germany kadib markii laacibka uu xusay inuu aad u xiiseynayo inuu u dhaqaaqo horyaalka waddankaasi Ingiriiska ee Premier League Sky Sport ayaa markaa xusaysa in laacibkan u dhashay waddankaasi Faransiiska ee Coman guud ahaanba uu sheegay inuu aad u xiiseynayo mustaqbalka horyaalka waddankaasi Ingiriiska runtii aad ayaan ugu farxaa markii aan maqlo dhawaaq ku aadan kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaasi Ingiriiska Premier League oo aniga markaa ay soo dalbanaya 25 jirkan ayaa markaa doonaya waayiisa ciyaareed ee garoonka Allianz Arena ee kooxda kubadda cagta Bayern Munich uu soo gabagabay doono balse madaxda sare kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa guud ahaanba waxa ay aaminsan yihiin in ciidankaasi lagama marmaan ay tahay in waqtiga kan xaadirka iska fasaxaan maxaa yeelay xidigani ayaa loo soo bandhigay heshiis kordhin garoonka Allianz Arena laakiin waxa uu dalbaday musharaad aad u fara badan waqtiga kan xaadirka aysan bixin karin maamulka sare kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich sidaas darteedna waxa la filayaa in laacibkani
ee loo gacan gelin doono mid kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee Premier League. xidigan reer Faransa ee Coman ayaa kooxda Bayern Munich waxa uu cagdhigtay sanadii 2017 waxaana uu haystaa heshiis gaaraya tan iyo bisha June ee sanadka 2023 laakiin haddii loo arko mudnaanta koobaad in ciiraankani marka la iibin doono xil ciyaareedkani kooxda Bayern waxay ogolaan kartaa inay iska fasaan ciiraankani reer Faransa ee Coman. Sterling ayaa doonaya inuu sii joogo Man City qodobkaasi waxa inoo haya Xuseen Cumar. ciyaaryahanka garabka u ciyaara Manchester City Raheem Sterling ayaa rajeynaya inuu dhammaystiro mustaqbalkiisa kadib koobka qaramada Yurub ee haddan socda. Raheem Sterling ayaa hadda wajibadilka xulkiisa gudanaya isagoo mar hore ka caawiyay xulkiisa ay guul ka gaaraan xulka Croatia kadib markii uu ka farxiyay taageerayaasha xulkiisa. Bernardo Silva ayaa ku guul dareystay inuu dhaqaaqo Barcelona qodobkaasi waxa inoo haysa Muno Cismaan. xidiga Manchester City Bernardo Silva ayaa doonaya inuu ka tago kooxda xagaagan sida laga soo xigtay The Athletic. Bernardo ayaa isha ku hayay inuu ka tago kooxda ka dhisan Etihad Stadium isagoo doonaya inuu la kulmo horyaalka cusub ee bandhiga kale. Bernardo Silva ayaa xubin muhiim ah ka ah kooxda macalinka Pep Guardiola laakiin waxaa laga yaabaa inuu ka mid yahay ciyaartoyda uu Guardiola doonaya inuu u huro sida uu lacag uga heli lahaa saxiixyada kale. balse waxa ay u muuqataa in Silva uu sidoo kale diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo kooxaha kale sida Atletico Madrid. Bernardo ayaa la joogay City tan iyo 2017 markii uu kaga soo biiray kooxda Monaco. intaas ayaan ku soo gabagabeynay wararkii ciyaaraha ee Bulsha Sports. waa anigu Xasan Cumar Xuseen sidaas iyo nabadgelyo.